إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكلمدي سدحات أنه تلقى الله التبنك هرئ بشد الحجة iyo axkaamta la xiriirta waxaa laga doonaya qofku inuu sameeyo qaabka uga faa'iidaysto. kelmaddanina waxay ku saabsan tahay soomka maalinta carafa. yowmu carafa oo maalinta 9aad ee bishan dilxija waa maalin ku beegan maalin khamiis ah. yowmu carafa waxaa loogu bixiyey magaca u qaadatay camalka xajka ah ee 10kan beri qaybtooda dambe la sameeyey 8 iyo 9 iyo 10 ilaa 13 la sameeyo. goobta la istaagay bannaanka ah carafa magaceeda la yidhaahdaa. marka meeshii bay ku caanbaxday yowmu carafa in la yidhaahdo. dadkana soomaaliyeedna bishii oo dhanba magacaasay u bixiyeenoo waxay yidhahdaan bisha carafa. in loo tiiriyana dee meesha ay ka joogto xajku markii la xirta kadib tiirka asaasiga ah ee la-aantii xajkuusan asaxaynin baa carafa ah oo nabigu alay slam alxaju carafa. maalintaasi dadka aan xujayda ahayn ee aan carafo taagnayn waxaa sunnaa inay soomaan. soonkeedana nabigu calayhi salaatu wassalaam ajir badan buu u sameeyey. halka dadka carafo taagani ee xajka aaday ay ajirka iyagu inay afuraan oy u xoogaystaan ducada iyo allabariga iyo adkaarta maalintaas laga doonayo sida nabigu sameeyey sala allahu aleyh wasalam. dadka aan nasiibkaas helin inay maalinkaa ka qayb galaan istaagga carafa yaa beddelkeed iyagana waxaa la siiyey maalin soonkeedu uu fadli badan yahay oo isla maalinkaas 9aada iyaguna halka ay joogaan iyo guryahooda qofkii soomi kara inuu ku soomo. soonka sunnada ah guud ahaan marka la ysku daro, marka waajibaadka laga reebo bisha ramadaan iyo wixii lamidka ah, soonka ugu fadli badan iyo maalinta fadli iyo ajir ugu badan loo sheegay oo maalinka carafa in la soomo. fi xadiis abi qataadata saxaabi abu qataada la yidhaahdo nabiga ka sheegay sala allahu alay wasalam inuu yidhi waxaan ilaahay ajir kaga doonayaa kaga rajaynayaa maalinka carafa soonkeeda inuu ku dhaafo dembi 2 sano ah, sanad tegey iyo sanad soo socda. in qofka loogu dembi dhaafo 2 sano aan ilaahay kaga ka rajaynayaayo marka aan soomayo abaalkaasaan ilaahay ka rajaynayaayo on kaga raadinayaa. daba fadligeedu maalinkaa la sooma yowmu carafa dadka aan xujayda ahaynan carafo taagnayn ay soomaan ajirka iyo abaalkaas in lagu rajaynayo ciddii ilaahay ka aqbalo sidii la rabayna u soonta ayuu nabigu inoo sheegay sala alla alay salam. marka 2 arrimoodba xadiidka macnihiisa haddaan caddayn dheeraada ku darno, dembiga la dhaafayahay dembiga kabaa'irta ma aha, gaar ahaan xuquuqda aadamaha ma ahan.
nabigu calay slam soomkii ka fadli badnaa iyo acmaashii ka waaweyneed ee waajibaadka ahayd iyo qayb xataa culammada qaar waa sunno ay yidhaahdeen axaadiista lagaga sheekeeyey dembigay dhaafayaan lagu dhaafayo ayaa xadiidkanna saamaynaysa macnihiisa. nabigu waa ka yidhi alcumratu ila alcumra wa ramadaanu ilaa ramadaan iyo acmaal kale intuu tiriyey mukafiraatun limaa baynahun ida ijtunibat ilkabaa'ir. riwaayadka qaarkood maa lam tugsha alkabaa'ir, haddaan kabaa'ir waaweyn la samaynin dunuubta kale waa la dhaafayaa. haddaba xajka ilaa xajkiisa, cumrada ilaa cumradeeda, ramadaan ilaa ramadaankii haddii la sheegay waxa lagu dhaafaya inay tahay wixii aan kabaa'ir ahayn, soomka carafana iyo soomu yowmi cashuuraa iyo acmaasha kale ee dembiga lagu dhaafaya saalixaadka ahna, isla xadiidtaasaa macnaheeda inay xadaysa saamayn ku yeelanaysa oo ka dhigaysa ida ijtunibat ilkabaa'ir, dunuubta waaweyn haddii laga fogaado. waa laga yaabaa acmaal saalixoo la sameeyey in dunuub bacda alkabaa'ir lagu dhaafo, oo dee towbadii baa ka mid a camalka saalixa. saa darteed soomkii haddaynu ku darno niyo wanaagsan iyo qasad iyo go'aan towba dunuub aan ka toobad keennana, iyadana towbadana tajubu maa kaana qablaha, wixii ka horreeyey ay dhaaftaa. waa sidai ay ahayd markaan ula imaano. ilaahay fadligiisa ma diidayso in wixii dunuub ee kabaa'ir ahe isaga xaqullaahi weeye la yidhaahdo uu ka dhaafo qofka. laakiin nusuus badan baa inoo sheegtay wixii xaq aadama ah inay towbo gaar iyo cafis iyo inaad ka xalaal dalabta isagii u baahanta. dhinaca labaad ee xadiidka waxoogay caddaynta uga baahan, sanad tegay oo la dhaafay waa la gartay, wax kaa dhacay wey. sanad soo socdaa la dhaafayaa dembi aan weli la samaynin, maxaa looga jeedaa in la dhaafo? marka waxay dhahaan dhowr arrimoodba way noqon kartaa, mid ka mida ama iyagoo dhanba. way noqon kartaa dhaafitaankan inuu noqdo bimacnaa in ilaahay ku waafajiyo khayr lagaaga dhaafo dembigii kaa dhaca, oo sababta towbada dunuubta dambeed samayn doonto sanad soo socota inaad ka toobad keento, inaad camal saalix oo kale la timaado lagugu dhaafo, sababta asaaska ay noqoto soonkii carafa aad soontay dartii lagu waafajiyo. macno saas oo kaleeta ana masalooyin kale sharciga waa ku yimid. nabigeena calai slam nin baa u yimid soo islaamay, rasuulka ilaahi acmaal badan oo khayr iyo wanaag oo jaahiliyadii samayn jiray intaanan muslim noqonin ka waran maxay noqon? nabigu wuxuu ihi aslamta bimaa aslafta, waxaa islaamnimadan ku heshoo lagugu hanuuniyey wanaaggaad samayn jirtay dartii baaba ilaahay hadiyad islaamnimada kugu hanuuniya sabab kugu noqday. marka camal aad samayso yowmu carafa aad soontay oo lagaa aqbalay, in waxa dambeed samayn doonto lagu waafajiya si lagaaga dhaafi lahaa way noqon kartaa. si kalena way noqon kartaayoo labaad, in laguba xifdiyo oo sabab xifdi lagaaga dhigo aad dunuubtii iyo waxyaabihii xumaa gelitaankooda lagaaba xijaabo. mid saddexaadna macnaheeda waa dhici kartaa in laguu kaydiyo camal saalixa ood samaysay oo siyaamu yowmi carafa ah oo u dhigma khaladaad aad samayn doonto, oo marka khaladaadkii la ururiyaay miisaanka la saaraay ay tani dheeli tirto, deebise sayi-adii haddii xasano dheeli tirto la helaay iyadaa xisaabta ka saaraysa. si kastoo in noqotaba saddexda macnaba waxaa lagu xaqiijinayaa in dembi dhaaf ay tahay sanad soo socda. marka maalinka waa maalin mudan inaan ku dadaalno qofku uu isku dhibo. hal masala aan ku gabagabeeyo kelmaddeennan kooban ee maalinka in la soomo
ku saabsan su-aasheeduna badanta niyada maalinka yowmu carafa aad soomayso ma ku dari kartaa ma niyoon kartaa inaad qada soonto qofkay qada lagu lahaa qadihiina inuu guda raba qadihii iyo yowmu carafa intuu niyada ku jamciyo oo isugu geeyo ma u wada gudaysaa sanadaas waxay farac ka tahay sanada qaacidada gudeeda ee tadaakhul cibaadaat cibaadaadku ma is-hoos galaan dabcan cibaadada is-hoos galana waa jiraan kuwaan is-hoos gelinna waa jiraan cibaadada is-hoos galaa jiroo markay tahaaro aad timaado qabayska iyo weysada way is-hoos galaan way israacaan labada qabaysee waajibkaana way israacaan labada sunnaana hal mid baa ku filaada salaaduhu qaybo isgalay leeyihiin sida taxiyadii masjidka labada ragcadood ahayd haddaad timaado iyadoo salaaddii faradka ahayd lagu jiro ama la adaamay oo sunnadii ka horraysay inaad tukataa doonayso taxiyadiina way kuu noqonaysaa soomkuma la mid ba marka mas'alada waajibaadku may soos galaan waajib iyo sunnana may soos galaan masaladan waxay gelaysaa mas'alada soomka sunnada ah iyo soomka waajibkii may soos galayaan 6 shawaal marka la soomayo ama yowmu carafa la soomayo ama yowmu cashuuraa la soomayo ama 9 maalmood ee bisha dilxija u horeysaba la soomayo ama isniin iyo khamiis la soomayo ama 3 maalmood ee 13 14 15 ayaamul biidka la soomayo maalmaha soonka sunnada la soomayo haddii mid waajiba la niyood oo qado oo qofka lagu lahaa nadar ama nadar uu qofku galay ama kafaara uu galay niyadaa labadaa niyo intay israacaan labadiiba ma ka gudayaan masale khilaafi culammadeena fuqahada isku qabsadeen aniga asaxul qowleyn ila raajixsane waa in cibaadadaa sunnada ah la kala qaado ma cibaada maqsuuda lidaatiha oo iyada la doonaya oo sideeda loo dalbaday mise waa sunno guud oo aan si gaara loo dalbanin hadday sunno si gaara loo dalbaday in gaarkeeda u taagnaato hadday tahay sunno aan si gaara loo dalbaninoo in waktigaa la sooma la doonayo una inay cibaadadii isoos geli karto israaci karto 6 shawaal waa maqsuuda lidaatiha markaad sheegto aragta ajarka ramadaankii iyo 6daa lagu daray siyaamu dahriga ka dhalanaya 2 maalmood ee yowmu carafa iyo yowmu cashuuraana waa sawm lidaatihi isaga si gaara ajir loogu sheegay oo sharciga qiimo gaara ka leh halka soonka isniinta iyo khamiista iyo ayaamul biidka iyo maalmahan kale dilxijo horaanteeda inaan maqsuud lidaatihi ahayn wax ajir iyo fadli oo gaara oo go-an oo lagu xirayna ayna jirin saas darteed maalmahan kalena haddaad qado soonto way isoos galayaan iyo sunnadii niyada haddaad la wada timaado laakiin maalmaha sida gaarka ajirka iyo fadliga loogu sheegay soon sunno oo la soomaayo inaanay waajibka isqaadanaynin baa aniga asaxul qowleyn ilaah saas darteed yowmu carafana sunnadii niyadii sunnada u baahanta sida yowmu cashuuraa iyo 6 shawaal kuwa kalena waajib iyo sunnaba niyaddii haddaad ku wada qabato waa ka isu raacayaan sida salaadii taxiyadahay iyo kuwa lamidka ah intaasaan kelmadeennan saddexaad ee ku saabsan maalinka carafiya soonkeeda iyo masale la xiriirtay kusoo gabagabaynayaa ilaa kelmadda dambe ملبي طامعا وجل ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت